Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa la yimid qorshe ka duwan madaxda maamul goboleedyada kale ee dalka oo looga abuurayo kacdoon ka dhan ah Al-shabaab deegaanada Jubbaland waxaana laba arrin uu ku cadaadinayaa guud ahaan xubnaha ka soo jeeda Jubbaland ee dowladda federaalka Soomaaliya xilligan qaybta ka ah. Axmed Madoobe qorshaha uu soo bandhigay dhab miyay ka tahay in Al-shabaab uu ku wajaho mise siyaasad ayay ka tahay? Dad badan ayaa dood ka keenay, muuqaalkan ayaana ku dul istaagi doonaa. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena galwareed nagu soo biir, like iyo follow dheh muuqaalka la sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa magaalada Muqdisho dhowaan kulamo kula yeeshay xubno ka tirsan dadka matala Jubbaland ee labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya ku jira. Xubnaha ka qayb galay Axmed Madoobe kulamada uu qabanayay waxay u badnaayeen xildhibaano iyo senataro inta badan waayo uu joog u ahaa lana socda dhibaatooyinka iyo daruufaha dalka uu wajahayo. waxaana Axmed Madoobe uu kala hadlay in xildhibaan kasta beeshiisa uu ka keeno ciidamo iyo weliba saanadooda hubka si ay uga qayb noqdaan kacdoon ka dhan ah Al-shabaab oo xilligan ka bilowda deegaanada Jubbaland. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xildhibaanada waxa uu si toos ah ugu sheegay inuusan hadda dooneynin inuu hub siiyo beelaha qaar, isla markaana deegaano badan oo Jubbaland ka tirsan dagaallo aad loogu leeday ay ka dhaceen. sidaa daraaddeedna beel kasta uu aaminsan yahay in hub ay haysato, si hadhow isaga aan loo odhan beel hebel ayuu hubeeyeyna ay tahay in beel kasta hubkeeda ay la timaado si ay Al-shabaab ula dagaalanto. Axmed Madoobe ayaa xildhibaanada waxa uu si toos ah ugu wareeyay inuusan hadhow qaadi doonin mas'uuliyadda eedda ka timaada haddii awood haysi dhanka federaalka ah dowladda federaalka ay muujiso oo aysan gacanteeda gaarsiinin maleeshiyaadka is-abaabulaya iyo ciidamada Jubbaland oo doonaya in Al-shabaab ay ka reexaan deegaanada ay ku sugan yihiin. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sidoo kale waxa uu ka dalbaday xildhibaanada in qof walba deegaankiisa uu dib ugu laabto, isla markaana uu wadahadal la furo odayaashiisa dhaqanka, isla markaana arrintan ay noqoto mid guud ahaan reer Jubbaland ka dhaxaysa oo aysan noqon mid maamulka iyo inta talada hayso oo kaliya ku eg. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe maamulka uu hogaamiyo ee Jubbaland waxaa gacantooda ka maqan deegaano dhowra sida gobolka Jubbada Dhexe oo idil oo Al-shabaab ay maamulaan, qaybo ka mid ah Gado iyo Jubbada Hoose. isla markaana tan iyo markii xafiiska uu yimid waxaa si weyn loogu eedeeyay madaxweynaha inuusan ka dhabeyn rabitaanka iyo hadalhayntii uu sheegayay ay ahayd in Al-shabaab gebi ahaanba laga saari doono maamulka Jubbaland. laakiin hadda fursad ayay u arkaan reer Jubbaland in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu xilligan Al-shabaab kaga sifeyn karo deegaanada maamulkiisa, maadaama kacdoon ka dhan ah Al-shabaab uu ka bilowday meelo ka mid ah dalka sida Galmudug iyo Hirshabelle deegaano ka tirsan. Al-shabaab waxay wajahayaan culaysyo aad u xooggan, waxaana dadka siyaasadda iyo amnigaba akhriya ay aad u aaminsan yihiin haddii tani dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay si weyn u xoojiyaan in Al-shabaab awoodooda la wiiqi karo. muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid. kani waa kitaabka ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasta oo muslima inuu barto waa kitaabka cadaynaya booska aad ka degaysa jannada haddiiba aad guulaysato in kastood ka xifdsan tahay ayaa ay ku eg tahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen. haddaba majaanis ma u weyday inaad barato qur-aanka kariimka? ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso? waxaan kuu hayaa maxadka tartiilul qur-aan online. waa dugsi lagu talagalay qof kastoo mashquula inuu wakhtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto qur-aanka kariimka. waalidweynaha qurbaa ku nool, waalid ka faa'iidayso fursaddan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka. waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca. waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka, barashada akhriska higaada luqadda carabiga, barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga, axaadiista iyo tafsiirka. waxaa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya ataxiyaadka, salaada iyo aayad kursida. waalid hadda ka faa'iideyso
oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online